raggan waa dhammaan saaxiibadii nabadoon Cumar baran bay joogaan afartan qodob bay soo saareen waa raggii dani taageersanaa waa raggii rabay inay aadaan oo warsangali gumeeyaan raggii rabay ilaahay waa ka soo horka laabtay alla maxay gunnimo rabeen raggaasi alla raggaasi maxay rabeen inay gunnimo warsangali iyo maxamuud harti ay dhex dhigaan alla maxay rabeen ilaahay baa qabtay dhab waa la qabtay bal waxay ka shaqeynayeen oo jiriimo ahayd ka war waxay iska indhatireen dadka isku duruufta yihiin waxay iska indhatireen xaaladii meesha taalay waxay rabeen in ay ku laabtaan ceerigaab rabeen bal wax ay jiriimo ka shaqeeyaan odayaashaas waa kuwa annaga ma taqaanaayay afartan qodob bay soo saareen cidii falka fulisay cidii baalkii fulisay cidii halkan oo inteedan idiin digeen oo inteedan lahayn war abeesaad ku war kolkolaha abeesaad ku wadatan inteedan lahayn war meeshaad raacdeen waxbayda kama jiraan inteedan lahayn maya annagu waa tashanaynaa annagu waa saa yeelaynaa yaa idiin diiday la sacaanood adaa yaa idiin diiday maya waxma jeerteen baan nahay maya ma taqaanaay imaaraadka maya halkaanay ka dhacday ma taqaanaay warsangali waa Puntland kon iyo sagaal war ana reer Puntland cid iga la jecel badan ma jirto Puntland laakiin si qolada hadda joogto waa qolo ayada la rabo in la badbaadiyo warqadaan hadda ay qorayaan waxay u dirayaan in isagiiba go'doon ku jiro isagiiba la rabo in la qabto qolyaan brigaad roosada bay ugu yeeraan Talyaaniga oo tuugada waaweyn maafiyada marka la shaqaysid waxay ku gaarsiinayaan xaalad aadan ka bixi karin hadda dhalinyaradii ma taqaanaayeen mudug wax ku leyn jirtay oo shabaabka ahay tusaalaha ugu waxa lagu soo xilgeliyay lacag baa leedan siinaya $10 markii qof dileen waxay ku qasbanaadeen dadka sii laayaan siciidani waa saas hadii kale idinka leedan dilay ama leedan fashilanaya baa leeyahay siciidani waa saas qola wax u dhiibtay 20 milyan 5 milyan baa loo dhiibay isaga go'doon ku jira ama video ba laga hayaa ninkaas ama hantidiisa oo dhan waxay taala dibadda hantidiisa u baqay in la qaato ama caruurtiisa in la laayo ama isaga in la dilo ka baqay taas ka baqay ma ninkaas aad markii waxaad rabtaan inta warqad u gudbisaan inuu idin jawaabo yuusan idinka idan lahayn idinka yuusan idan lahayn afartan qodob bay u direen ninkan reer Puntland wuu la hadlay orda beejkiisa galo waxaad fiirsan muuqaalada u dhigay walaalayaal anigu kama hadli kara xaaladaha qaar madaxweyne dhan oo la dalkiisa ka baqay muxuu ka baqay yuu ka baqay waa garanaysa ciddu ka baqay nin isagiiba la xagee jira isaga hadda xagee ma ogtiin muxuu ku baqay xilligan yaa ka warqabo yaa garanayo cidna garanayso cidna garanayso hay cid garanayso jirto hay afartan qodob u direen bal la arka waaci waa ka bariyaan maqli jir waaci waa ka bariyo doqonta weyri oo shamarna ku dhuf agteeda ku dhuf marna daanka ka jibufi waa doqontii doqon wey bal afartan qodob ay qoreen afartan qodob ay qoreen qodobka koowaad warqadii waa kuwana qodobka koowaad waxay dhaheen cid geysatay ama fulisay weerarka diyaaradaha iyo gantaalaha loo adeegsaday laguna dilay Caaqil Cumar bay dhaheen baan rabnaa ujeedada qodobkan Puntland waxay ku cadaadinayaan odayaasha hadlay inay shaaciso cidda dishay nabadoonka waxa si dadban loogu tilmaamay in qodobkan in la og yahay in weerarku ahaa mid qorshaysan oo aan ahayn shil wuxuu ka dhigan yahay qodobkan hanoo sheeginina been cidda dishay waan ognahay idinku haddaad ogolaateen ama ka warqabteen annagu waan ognahay way qodobkaas waa qodobka koowaad oo ay direen ujeedadiisuna taas ah si dheer markaan u falanqeeyno qodobka labaadna waxay leeyihiin sababta loo beegsaday ee lagu banaystay dilkiisa annagoo og inuu ahaa oday samatalis ah maxay tahay ujeedada qodobkan ay odayaashu ma taqaanaayay ula wadaageen Puntland waa mid ay isku weydiinayaan muxuu caaqilku qalad galay qaladkiisu muxuu ahaa waxa lagu muujinayaa in dilka nabadoonku uu yahay cadaalad darro iyo sumcad dil loo geysanayo beeshiisi iyo beesha guud ee uu ka soo jeeday haddii aan sharaxnana waxa weeye war Puntland ay haddii aad aaminsantiin in la banaysan karo dhiigga nin sidaas u qiimo badan maxaa noo haray qodobkaas macnihiisana waa qodobka saddexaad ee odayaashu ay direen ama qoraalka ku qoreen waxa weeye
sababta ilaa iyo hadda aanay mas-uuliyiinta puntland uga hadlin dilka xaqdarrada ah ee loo geystay nabadoonka xildhibaanadii warsangeli 66 xildhibaan ee puntland madaxweyne ku-xigeen wasiiro kama aysan hadlin ujeedada qodobkana puntland waxaa si toos ah loogu eedeynayaa aamusnaan iyo kabaaraan deg la-aan aamusnaantaasna puntland waxaa loo turjumay ogolaansho dadban ay og tahay ama baqdin siyaasadeed oo ay ka baqayso inay difaacdo dadkii ay sheeganaysay ama ay lahayd puntland bay ka tirsay cuqaasha qoraalkan qortayna waxay muujinayaan in kalsoonidii puntland ay ku qabeen ay jabtay shacabkiina la laayay haddii shacabkii la laayay oo la aamusan yahay maxaa meesha noo yaal marka fariintu waa noocaasi noqonaysa qodobka afraad ee odayadu direen waxa weeye sababta ay mas-uuliyiinta puntland uga aamusan yihiin baaqyada iyo qaylada shacabka ilaa shalay shacabka waa barnaamijyeen cid u jawaabtay waan waay kuwaasoo ka cabanaya diyaaradahan duqeeyay ilaa deegaankii diyaaradaha dulmaray ujeedada qodobkana waxaa lagu xasuusinayaa in shacabkii deegaanka ay si joogto ah uga cawdeen diyaaradaha dul wareegayay shicaanyo ceelbu iyo baran iyadoo lagu leeyahay muddadii diyaaradahaasi dul wareegayeen deegaanadan shacabku way qaylinayeen way hadlayeen maxaa loo qariyey cabsidooda maxaa loogu jawaabi waayey puntlandna waxaa la sheegay qodobkan inuu dembi ku noqday isku darka aamusnaanta ka hor dilka intuusan dhicinna way aamusnay aamusnaanta kadib dilka labadaa kiis baa loo haystaa puntland qodobkan markii hore shacabku ay lahaayeen war diyaaradana dul marayana puntland waa ka aamustay markuu dil ku dhacayna waa ka aamusay taas oo loo sababaystay in afartaasi qodob ay yihiin isku sidkan yihiin oo ay leeyihiin cabasho su'aal cadaadis siyaasadeed iyo digniino macnaheeduna yahay puntland bay ogtay haddaba maxaa laga dhaxli karaa maxaa ka dhalan karaa haddii jawaab laga waayo puntland anigu waan ogahay puntland ma jawaabayso waayo hadday jawaabayso toddoba beri kahor intuusan dil ku dhicin bay hadli lahay markuu dil ku dhacayna waa hadli lahay go-aan siyaasadeed iyo mid bulsho iyo kala fogaansho rasmi ah oo u dhexeeya deegaanada sanaag iyo maamulka puntland horey baan waxaan idinku sheegay in rajadii puntland ee gobolka sanaag oo awalba aan caga badan ku taagnayn ay soo afjarmaysa si rasmi ah muuqaaladeedii dib u baara waxaa ka dhalan karta waa midda koowaad ee kala fogaansho siyaasadeed reer sanaag waxay qaadan doonaan mowqif siyaasadeed oo ka madax bannaan puntland bay qaadanayaan waxay rasmiga waxaa la filan karaa sharci iyo gole beeleed oo ay samaystaan kaas oo lagu horumarinayo inay xiriir la yeeshaan maamulka waqooyi bari ama ay ku dhisanayaan maamul u gaar ah sida maakhir hore baa labadaas baa u doroon warsangeli caawo inay waqooyi bari ku biiraan ama inay maamul kala dhistaan cadaalad darradii laga dareemay meesha aamusnaantii puntlandna waxay la mid noqotay dhiiggiinu qiimo inooma leh sidaas darteed beesha warsangeli iyo beelaha maxamuud harti waxay sheegan karaan in aysan jirin dan guud oo ay puntland ka leedahay iyaga wixii ka dambeeya duqeynta loo geystay nabadoon cumar cabdillah waxaa la filayaa arrinta labaad kala jab siyaasadeed oo dhex mara warsangeli iyo puntland xildhibaanada wasiirada saraakiisha ka soo jeeda sanaag waxay noqon doonaan kuwo is-casila una ololeeyo lana dareen noqdo shacabkooda iyagoo puntlandna ufdha arrintaa shacabka ku cadaadinaya waxaana la joojinayaa wada shaqayntii maamulka puntland waxaana halkaas laga dareemi doonaa hadhow in baarlamaanka puntland dhexdiisa laga filan karo in xubno warsangeli ah diidaan shaqada ka socota isagana soo tagaan gorowe oo ay deegaanadooda ku laabtaan haddaba xaaladahaasaa ka dhalan kara waa markaan fiirino mataqaanaa khibradayada aan kaashanno falalka noocaana horey usoo dhacay deegaano badan oo soomaalida ah aan kaashanay waxaan ognahay in xaalku saas noqdo
sidoo kale waxaa dhalan karo in dadkan sida hadda la filayo ay isugu biyo shubtaan maamulka waqooyi bari reer Sanaag maadaama aysan hadda suurtagal ahayn maamulka Maakhir waxay garab siin doonaan nimankii odayaasha ahaa ee aaday Laascaanood iyagoo Laascaanood tagi doono ogaanayana in markay garab u baahnayeen oo xildhibaanadii Puntland aamuseen in xildhibaanadii waqooyi bari ay hadlayeen markii madaxweyne ku-xigeenka Puntland aamusay in madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari uu hadlayay Laascaanood iyo maamulka waqooyi barina ay maanta u taagan yihiin difaacooda iyo sharafkooda Laascaanoodna waxay noqon kartaa xurunta ugu weyn ee siyaasadda gobolka waqooyi bari noqon waxa meeshaasina ka baxaya wararkii ahaa warsangeli waxay taageersan yihiin Puntland halkaasi ku soo afjarmayaan boqolkiiba boqol halkaasi bay ku soo afjarmayaan dib u gurasho dhici doonto dib u gurasho ciidan iyo tan amni oo hadda ifalfaalooda soo baxayaan cuqaasha ay dirayaan cuqaashi warsangeli ee ciidamada ugu badan lahaa waxay leeyihiin ciidanka wax ka soo baxay fariimaha Puntland ciidamada ka soo jeeda deegaanka ee qaybta ka ah Puntland PNBF police iyo military dib bay u soo baxayaan waxayna ku soo laabanayaan goboladooda gaar ahaan gobolada Sanaag iyo Highland magaalooyinka Baran iyo Dhahar iyo Xingilool ay dib ugu soo laabanayaan iyagoo oo diidayo amarada ka soo baxayo Puntland oo ma hayna arintaas uqaashiga ku dhawaaqday saraakiishina ka jawaabay haddaba arintaasi waxay keeni kartaa in deegaanadaasi ciidamada warsangeli ay dib u soo laabtaan hadhowna halkaas ay ku burburaan awood qaybsigii beelaha warsangeli ay ku lahaayeen Puntland ama cid kasta oo warsangeli ah oo rajo ka qabtay ay markaasi Puntland ka siman waxa la filan karaa shirweyne qaran wayba sheegeenba shirweyne qaban oo beesha warsangeli Maxamuud Harti oo go'aan ay kaga qaadanayaan Puntland iyagoo qaban karo shirweyne beeleed weyn oo laga hirgelin doono Baran Dhahar ama Ceelbo midkood kaas oo lagu cadeynayo siyaasadda warsangeli uu ka qaatay Puntland kagana fogaanay iyada oo markaasina la soo dhaweynayo maamulka waqooyi bari dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka waxa xigi doonta markaas markay in go'aamadaasi la fili karo in lagu dhiso hay'ado amni iyo ciidan oo deegaanka ah iyo in maamulka waqooyi bari laga codsado in laga helo awood qaybsi maamulkaas oo hadda mataqaanay awood qaybsigiisii wasiir aan waxba lama magacaabin hadda shaqadaas la bahalkeen doono halkaasna waxa ku soo tirtirmayo xiriiskii rasmiga ah ee dani iyo xukuumaddiisa haddaba anigu waxaan oran lahaa yaa waqtiba idinka tagan shaqadaas ku dhaqaaqa hadda inta hadda aan waa la filan karaa dhabeeyaba haddaa dad caqli iyo damiir leeyahay dakadii la asqorin hal dardarkaliyo wabillahi tawfiiq walaaliin waydiin baahan yihiin idinkuna u baahantiin dakadihiinna iyo khayraadkiinna waydiin ilaalmayaan ayaguna waydiin baahan yihiin oo meel ay kala soo degaan ma taqaanay raashinka iyo alaabada bay u baahan yihiin waa isku baahantiin isku duruufaatiin isku xaalad aad wajahaysaan maamulkii Puntland oo aad dhahdeen wayna difaacaya isagii baa idin duqeeyay iisan idinka tagin waqti walaalihiin oo maanta idin baahan idinkuna u baahantiin isku xaalad aad tihiin isku duruuf aad tihiin ha ka harinina dakadii laas qoray oo ciid ka buuxsantay oo dani rabay inuu saldhig ka dhigo ciidan hal dardargeliyo Maxamuud Harti anigu tala wacdaysiiyay dulmiga idinku socda iyo gardarrada idinku socotana wax loo adkeysan kara ma walaalihiin oo maanta sharciyadii haysta oo idin baahan wallahi fursadaas maanta ka faa'iideysta maamulkiiba idin hayaan sharciyadiiba idin hayaan dib bay ku qabaan boosaaso canshuur dhabal ah buu dani ku soo rogay hobyo ma aadi karaan meesha ugu dhow waa laas qoray dhibtaanaana idan qabsatay waa isku baahan tihiin isku baaqi ahaada anigu taladaas idan siinaya waa hadda dad caqli leh tihiin intaas ku dhaqaaqa aad baan idin salaamaya saaxiibayaal meel kasta joogtaan dhamaantiin warbixinteedana intaas ku soo gabagabeynay